Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soddon sano ayaa wuxuu ka maqnaa reerkiisii kadibna wuu ku soo noqday. Haddaba muxuu kala kulmay? Waa qisada aynu akhrisan doono maanta insha Allahu tacaala. waxaa jiri jiray nin la odhan jiray Farruukh. waxa uu adoon u ahaa nin ganacsade ah oo aad u wanaagsan oo la odhan jiray Rabiica wuxuu noqday oday weyn oo da' maalin maalmaha ka mid ah ayuu u yeedhay Farruukh waxaana uu ku yidhi ilaahay dartii ayaan kuu xoreeyey. Farruukh aad ayuu u farxay waana uu u mahadceliyey. Rabiica wuxuu siiyey 30,000 oo diinaar oo uu ku yidhi noloshaada ku kaalmayso. waxa uu ku yidhi xageed rabtaa inaad ku noolaato? wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaan ku noolaado magaaladii rasuulka Ilaahay sallallahu alayhi wasallam ee Madiina. wuxuu ku yidhi Rabiica Madiina cidna ka garan maysid bilood ku cidlootaa. waxa uu yidhi maya wallaahi baan ku dhaartay magaalada rasuulka Ilaahay cidla ku dareemi maayo. Farruukh waxa uu degay Madiina waxa uu ku guursaday gabadh aad u wanaagsan. muddo markii ay wada joogeen habeenada ka mid ah ayaa wuxuu ku yidhi beritoole waxaan u baxayaa safar dheer. waxay ku tidhi yaad igaga tegaysaa? cidna ka garan maayo magaalada, uurna waan leeyahay. waxa uu ku yidhi wax badan kaa maqnaan maayo, waxaan kaa maqnaanayaa 3 bilood waxaanan kaaga tegayaa 30,000 oo diinaar. waxay ku tidhi hadal aad u cajiiba oo qalbigiisa degay. waxay ku tidhi Farruukhow waxaa laga yaabaa inuu khayrku ku jiro waxaad adigu u haysato inuu shar ku yahay. waagii markuu baryay ayuu Farruukh baxay. waxaa ka soo wareegtay 6 bilood. gabadhii Farruukh inan ayay dhashay waxaanay ugu magac dartay Rabiica oo ahaa ninkii xoreeyey odaygeeda Farruukh. weli muu soo noqon Farruukh. inankii yaraa ee Rabiica wuxuu jirsaday 8 sano. waxa uu bartay cilmiga oo uu aad ugu dadaalay. waxa uu cilmiga ka qaatay culimadii ugu waaweyneed waqtiga oo uu ka mid ahaa saxaabigii weynaa ee Anas bin Malik radiyallahu anhu. Rabiica wuxuu noqday caalim weyn oo ka mid ah culimadii waaweyneed ee magaalada Madiina. maalin maalmaha ka mid ah isagoo safar u baxaya ayaa ardaydiisa mid ka mid ah ayaa weydiiyey xageed u baxaysa. waxa uu ku yidhi waxaan doonayaa inaan tago Ciraaq oo aan soo hubiyo xadiis aan filayo inuu rasuulka Ilaahay ka sugnaaday sallallahu alayhi wasallam. ardaygiisii ayaa wuxuu ku yidhi safarka dheer ma waxaad u galaysaa hal xadiis oo keliya? markaasaa wuxuu ku yidhi hadal aad u cajiib ah, cilmigu kuma siiyo barhkii ilaa aad adigu siiso cimrigaaga oo dhan. waxaa ka soo wareegtay 30 sano maqnaashihii aabihii. waxaa soo noqday Farruukh. waxa uu soo galay magaaladii Madiina. markii u horeysayba wuxuu galay masaajidka rasuulka Ilaahay sallallahu alayhi wasallam halkaasi oo uu 2 ragcadood ku tukaday qabrigii rasuulka calayhi salaatu wassalaam uu soo booqday isagoo aad u murugaysan kana murugaysan reerkiisii uu dayacay ee uu intaasoo dhan ka maqnaa. waxa uu eegay midigtiisa waxa uu arkay wiil dhalinyar ah oo lagu urursan yahay oo dad badani ay cilmiga ka baranayaan. xalqadii iyo halkii cilmigu ka socday ayuu tegay waanu dhageystay. markii uu dhammaaday ayuu mid ka mid ah dadkii dhagaysanayay waxa uu weydiiyey sheekhan caalimka ah. waxa uu ku yidhi waxaa la yidhaahdaa Rabiica. waxa uu ku yidhi magaciisoo dhammaystiran ii sheeg. waxa uu ku yidhi waxaa la yidhi Rabiica ibnu Farruukh. Farruukh ayaa aad u yaabay. waxa uu ku yidhi ninkii aabihii miyaad aragtay? waxa uu yidhi maya anigu maan arag, isaga laftiisuna muu arag, siduu u dhashay muu arag, waxaana la sheegaa in uu dhintay. Farruukh wuxuu yidhi laa xawla walaa quwwata illaa billaah. kadibna waxa uu u kacay halkii uu gurigiisu ahaa. albaabkii ayuu ku garaacay. waxaa ka furay inankiisii isaga oo aan garanayn inuu yahay ninkan albaabka garaacaya aabihii. waxa uu ku yidhi waxaan doonayaa hooyada. waxaad ku tidhaahdaa waxaa laga yaabaa inuu khayrku ku jiro oo uu ku dhammaystiran yahay shay aad adigu aragto inuu shar ku yahay. waa kelmadii ay ku tidhi maalinkii uu sii baxayay. kadib markii uu u sheegay ayay garatay waxaanay ku tidhi waa aabbaha Farruukh. way soo wada fadhiisteen waanay sheekaysteen. odaygii wuxuu weydiistay inay cafiyaan oo ay saamaxaan cimrigiisa inta ka dhimanna uu la noolaado oo uu nolosha la qaybsado. halkii ayay ku cafiyeen oo ay ku wada noolaayeen. haddaba qisadani muhiimadeedu waxay tahay waxa weeye hooyada wanaagsan ee soo saartay caalimka weyn ee ka mid culimada waaweyn ee muslimiinta. waa kuma caalimkii weynaa ee ka mid ahaa ardayda
ربيعة ابن الفروخ إمام أحمد بن حنبل إمام شافعي إمام مالك إمام أبو حنيفة. فضلا هدي أد garanayso jawaabta commentiga noogu reeb waad mahadsantahay.